waxaan xusi lahay inuu ugu dambayntii qisooyinka la xidhiidha dadkii saalixiinta ah iyo dadkii naga horreeyey bal qisooyinkooda la xidhiidha gudashada ammaanada qisooyinkuna had iyo jeer xiise gaara waxay u leeyihiin waxa ay ka turjumayaan waxaan la sheegaya inuu yahay wax la hirgelin karo waxaa laga warramayaa inuu yahay wax la hirgelin karo waxa caddaynaya qisada dhacdada dadku ay soo sameeyeen qiso la xidhiidha caarka ama had iyo jeer cawrada ilaalinteeda ama ammaanada la xidhiidha xagga cifada iyo dhowrsoonaanta dhallinyarada aada ha u dhegaystaan waxaa dhacday sacuudi arabi ahayd qolo dhallinyaraabaa waxay oo habla ah ayaa la dalxiis geeya waa tan had iyo jeer basaska lagu qaado hablaha la dalxiis geeyo markii dalxiiskii hablihii loo qaaday kayntay kala galeenoo dee meel durugsan baa la geeyey kaynta ama duurkay kala galeen midiba meel ba iska gashay siidhigii unbaa lagu dhuftoo gaarhigii baskii baa si deg deg u cararay oo u dhaqaaqay inan baa markaa soo gaari weyday baski intay xaajo gudanaysa ama meeshaa ku mashquulsanayd kaynta cidladii bay kaga tegeen horena uma xusuusanin way soo caraawday oo gabalkii oo gaabtay ayay istiri habeenkii socon kari mayso aqal yar bay aragtay aqalkii bay gashay nin dhallinyaroo beeralaya ayaa aqalka iskaga noolo beertiisa iyo xoolihiisa iska wata ninku waa nin dhallinyaroah inantuna waa dhallinyaro meeshuna waa cidlo wuxuu doonuu ku samayn karaa soomaa hadaanu ilaahay ka cabsanayn wuxuu arkay inantaa cadilana reer magaalka isaguna waa reer miyi marka u horrayso hilifaa u qaadi laha hadduu yahay midaan bilaa iimaana oo hore u soo fadhiya waaye wuu ka naxay wuu xishooday dabeetana wuxuu ihi halkaa adugu caawa aqalkan soo seexo aqalkii maqsinkii keliyahaa ayuu ihi halkaa seexo sariirtaydaa ku seexo cid kale ma haysa dee way ku qasbantay bahal ku baacunaya hadday bannaanka u baxdo waa saxraaga iyo dhulkaa qarfada ah sariirtii bay iska seexatay hoostana way ka eegaysaa talo goormu soo ruqaansan doonaabay leedahay kan cidlada kaa helay talo goormu kugu soo kici hurda kuma soo dhacayso isaguna markaa salaad buu galay kolkuu casheeye kadib yadaa cashaysa wuu iska tukanayaa dab buu halkan shidayaa dabkaasuu kolba fartiisa saa u yarogeliyaa kolkuu kala soo boodo ayuu haddana salaadda iska galaa markuu salaadda ka baxaba dabkunbuu farta saa u yarogeliyaa habeenkii intii badnayd saas uu tukanayey subaxii ayaa inantii iyada ahayd uu cid la raadsaday oo meelihii gaadhiga laga helayay meel fog buu la raadsado sidii buu gaadhiga ku saaray sidii ba reerkoodii ku tagtay qisadiibaa markaa aabbaheed ay uga sheekaysay inantii oo la doondoonayo la waayey aabba ninaan u malaynaya jin ayaan xalayta guri la galay ninkii waxba ima yeelin laakiin inuu jin ahaa baan u malaynayaadoo xalay oo dhan gacantuu dabka kula jiray bayt dabku kula jiray xalay manuu gubanaynin markaa ma garanaya wixii bal ninkii wuxuu yihi odaygii inanta dhalay waxaad ila raadsataa meeshii ninkaa xalayta isku hesheen gaari baa la soo qaatay waa la baadi doonay waa la socday gurigii yaraa buu ninkii dulyi aabbaheed inantiina way la socota arrinkanaa loo kuurgalaya waa ninkii caynka ahaa ee inantan xalayta hooyey ma adigaan ahayn haa anigaan ahaa waay qisada nooga warrantay wallahi inantan waa ka xishoodayoo shaydaanku markuu iyada ii qurxiyaba salaad baan galaa markuu salaadaa soo jiidhana dabkan fartaa geliyaa fartaa gelinteedaas waxay xusuusinaysay naarta ilaahay naarta aakhiro sawtaa kama kulula un baan idhaahdaa buuri marka halkaasaan ku hor joogaan xalay oo dhan ku qaboojinayay ilaa intaan kuu soo rawxinayay haddaba inantaydii kol haddii aad qof aaminahoo ilaalinaya ahayd intood cidladaa ka heshay lagugu aamina caarka iyo cawrada ah aniguna iyadii baan kugu aamina iminkaan kuu guuriyey buui iminkaan si xalaala kugu guuriyey waana kugu xoolaynayaa inantiina waa taase qabsoo hogaami marka dhallinyaroy fulow guuli kuu dhowaydah geesi ilaahay ma xelo haddii aad noqoto qof aaminah oo naarta ilaahay xusuusan oo ilaahay u cibaadaysanaya oo ilaahay ka xishoonaya oo ummadda ka xishoonaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ilaahay meelaanad ka filayn buu dad kugu arsaaqaya oo duuyuu kugu arsaaqaya oo sumcad buu kugu arsaaqaya facalaykum bilcifa dhowrsoonaada oo ammaanada la xidhiidha xagga
farjiga iyo afka iyo ibta ilaashada qisada kale aynu xusi lahay waxa weeyaan asxaabiga la odhan jiray jariir ibn cabdillaahi albajali radia allaahu canhu waxa uu ahaa markuu nebiga heshiiska islaamka la galay nebigu wuxuu ku yihi waxaan kugula heshiiyey heshiiska islaamka wa cala nusxi likulli muslim iyo qof kasta oo muslimaba inaad u danayso oo aanad ka danaysanin way kala duwan tahay qofka walaalkaayana inaad dantiisa ilaaliso dantaadana ilaaliso taas waa mid waa sida wanaagsan iyo inaad adigu ka danaysato haddaad doonayso isagii boholba ha ku dhaco xadiid saxiixa waxaa ku sugan inuu nin ka iibiyey faras ninkiibuu ku yidhi faraska imisaad siinaysa wuxuu uhi 400 oo dirham ka warran buu ihi haddaan 5 kaaga dhigo dee waad fiicantahy ka warran buu ihi haddaan 6 kaaga dhigo way ka sii wanaagsanta 7 haddaan ka dhiga ka warran dee way ka sii fiicanta 8 haddaan ka dhiga 8 baan kaa siistay qaaday ma ka dhacdaa dadkeenna baac mushtariga ama shaqaynaya yaa timesu in qofkii aad wax ka iibinaysay uu ku labanlaabo soo wax naadira maaha wuxuu ilaalinayaa ammaanadaa uu nebigu ka sugaya calayhi salaatu wasalaam waa dadka in loo naseexeeyo waa nasiixadii waa ammaana taa uu nebiga ka ballan qaaduu kula heshiiyo ilaalinaya marka neefkan ayuu eegay dabeetana wuxuu arkay 400 oo dirham inuu ku jaban yahay qiimihiisuna 800 uu yahay 8 buu ka siistay wax la yaab leh qisada kale waxay la xidhiidhaa iyaduna ganacsatada aynu ognahay markay waxiibinayaan hadduu wallaha ka daaya iyo dhaarta beenta ah xayeysiis buu nafta kaga jaraya alaabta soo maaha waa caynkan waxaa laga yaabaa tiradeeda iyo tayadeedaba inuu ka been sheego waxaa laga yaabaa isagoo shaygu foojariya inuu originaal ku sheego isagoo mustacmaloo lasoo isticmaalay inuu ku sheego mid cusub xayeysiis abu xaniifa nin bay shuraaka ahayn bashiir la odhan jiray abu xaniifa dee caalimkaa weyne saaxiibulmadhabkaana uu ahaa haddana ganacsigiisu iskaga jiray bashiir nin la ydhaha bay saaxiib ahaayeen alaabuu bashiir qaaday dhar bay ahayd waxaa la yidhahda khasiga xariir bay ahayd wuu iibgeeyey wuu abu xaniifa waraaq buu ka daba diray oo wuxuu ihi dharka mid baa ku jira ceebaysan dadkaad ka iibinayso ceebta u sheeg ama ha ka iibinina ka reeb waraaqdii ninkii way gaadhay uba suu aaba yeeline dharkii oo dhan ba uu iibiyey oo maca kii ceebta lahaa ku jiro markuu ku soo noqday abu xaniife ayuu yihi ka warran dee dharkii waa tawadaybiinku waraaqdiiba ku soo gaadhay buui haa buui oo kii ceebta lahaana miyaad raacisay waan raaciyey haddaba aniga qaybtayda gaar iigu saar buui qaybtiibuu gaar ugu saaray dhammaanteeduu wada sadaqeeyey sadaquu bixiyey wuxuu dhi shubha ku jirto in xaaraana baa la socoto xoolaha qaybtan xoolahayga kalaan iska haysane intaa iyada ah sadaqa ii wada dhaafi keebay ka suuro gashaa maanta way adagti soo wax adag maaha qisada kale waxa ay khusaynaysaa inay ilaaliyaan dumarku ammaanada dumarkay daliilu noqon kartaa waa qiso aan wakti fogeyn dhacday si baa qisadaa soo wariya oo soo naqila waxau ihi nin baa gabadh guursaday sheekii waa cidka ahaa casrigan ba mucaasirkaa wey ninkiibaa gabadhii isku dayay inuu qarsado maxaa la yidhahdaa maqudbusir ba ahayd yaa aaskii labaada suuqa madow yaro ahaa ninkaasi wuxuu isku dayay inuu qarsado xaaskiisii horaa soo ogaatay way dabagashayoo guriga ay had iyo jeer arrimahaana xasaasi bay ku yihiin dumarku oo anteenooyinkooda aad bay u taagan yihin markaa ciyaar maaha waxba lagama qarin karo kollay leyrhkeedu meelunbay kaga soo shidi doontaa guriga uu galaabay soo heshay iskumabay dhibine qof dee waxay ahayd aada u miyir qabtoo iskumay dhibin way iskaga aamusta markay ogaatay halkaa inuu xaas ku qabo muddo aan fogey kadibba waxaa dhintay ninkeedu dhaxalkiibaa la qaybiyey waxay ku qanacday dhaxalka qaybteedan umunka ah ama 8 meeloodoo meel inay gabadhii kale uu qabay la leeday soo saa maaha hadduu nindhinto umun ama 8 meeloodoo meel bay wada yeelanayaan labada xaas
marka waxay tiri haddaad adigu keligaa iska qaadato gabadhii halkaasina dee suuq madoobaheedo kuma soo doonan karto oo kuma soo heli karto laakiin soo ilaahay kuma arkayo subxaana wa tacaala kol hadduu ilaahay ku arkayo ha qarsanine dhaxalkaa gabadhii lahayd iska sii way raadisay way u tagtay gurigii bay ugu gashay xaaskii hebel qabe miyaa tahay haa ninkii wuu dhintaye dhaxalka intaasaa inagu soo hagaagtaye dhaxalkaagii waa kan tiina way naxdayoo dee dangala ku soo heshay waabay ku dili khatar iyadiina way ka sii cajo badatay oo waxay tihi walaal aad baad u mahadsan tahaye muddo ka horba dhowr bilood ka horba ninka xaasumaan ahayn oo wuu ifuraye xoolaha nadaala iska qaado marka sheekee taa horena ammaanadiiba xafiday tan kalena tii horena xoolaheedii ilaahay wuxuu ku ilaaliyey ta dambe iyaduna ammaanadii xafid laba khaa'inadood hadday ahaan lahaayeen way isku dhalaali lahaayeen soo maha way isku qarxi lahaayeen qisada saddexaad ibnu caqiil ninka la yidhaahdaa warinaya waxa uu yidhi nin baa wuxuu tegey xajka qisada wakhtigiisii bay dhacday markaa isagoo ammaanada ka sheekaynaya wuxuu nin baa wuxuu tegey xajka isagoo xajkii joogaa wuxuu helay kuul ka samaysan bahashan macdanta ah ama qaaliga ee luuluuda la ydhaah xadhig guduudan ama cas ayaa kuushaa ku taxan oo isugu xidhxidhan oo dee waa tan la isku qurxiye qaaliga ee dahabkaba ka qaalisan kuushii iyada ahayd ammaan ahaan buu usoo qaaday isagoo yaboohinaya ayaa ninkii kuusha lahaaba isheleen waa qaaliga kuusha ninkii baa yidhi waxaan ku siinayaa lacag waxba ha isiinina ilaahay daraaddii baan kugu daayay iska qaada buuri kol haddaad heshay baadidaadii anigala culays bay igu ahayd baadida xaramka laga helaaye wuu u duceeyey aad buu ugu farxay wuu la tegey ninkii suuriyu kula noqday wakhti hore ahayd magaalada xalab la yidhaahdu deganaa ninkii isaga ahaa wuxuu ahaa nin odayahoo sheekha ayuu ahaa oo masaajidka xalab tukiya kuushiisiibuu halkii la tegey iyo reerkiisiibuu u tegey kadibna waa dhintay ninkii sheekha ahaa ibnu caqayl isagaaba ka warramayaoo waxau idhi ninkii kuusha helay baa magaaladii tegey ilahay baa wax isku beegbeegaya dadkii magaaladiibuu la kulmay ramadaan wuu ku yaro rafaaday oo meeluu galaabu waayey nimanuunbaa soo kaxeeyey oo masaajidkii keenay dadkii masaajidkuna waxay u arkeen nin ahlucilmiga inuu yahay waxay ku idhahdeen ramadaantana tuki ninkii sheekhaha masaajidkan waa ka geeriyooday waa yahay buui sidii buu ku tukiyey isagoo tukiya masaajidkii ayuunbaa idhaa nin wanaagsan baa tee masaajidka iskaba wadoo cid kuu dhaantaba lama hayee sheekhiina inan buu ka tegay inan macnaha gabadh yarow dhalay buu ka tegaye dee gabadhiina aan kuugu darno meeshaba aada isku qoofala tidi dee waaba wax wanaagsan buu ihi baarkin baabaan kolka hore la aabee dhallinyaroy ammaanada ilaalinteeda waxa lagu helaa baan idiin sheegaya ayay qisadu ka turjumaysa wax isku wada beegan oo isku qoofalan inaad ku heli karta ammaanada ilaalinteeda waa qiso dhacdo kutuba taarikh ku sugan inantii buu guursaday ninkii inantii iyagoo wada jooga ayuunbuu cishadii dambe inan xaaskii u fiirsadayoo wuxuu ku arkay un iyadoo kuul gashan kuushaasi inaan garanayaad mooddaa buui kuushaa inaan garanayaad mooddaa lu'luudee qaaliga ah midaan beri xajka ka helay oo nin odayahoo lahaa aan siiyey oo odaygii igu dul baroortay oo lacag aan ku siiyo uu yidhi oan lacagtii ku diiday bay u eg tahay inantiina markaasa ilmaysa masay tidhi aabbahay ayaa wuxuu ii sheegay kuushan inay xajka kaga luntay oo ninuu u soo helay oo uu siiyey markaa kolkuu ninkaa xusuustaba wuu ilmayn jiray oo wuxuu odhan jiray ilaahayow inantayda waxaad ku arsaaqdaa ninkii kuusha ii helay oo kale halka warran ilaahayow ninkii kuusha ii helay ninkaasi nin ammaano badan buu ahaaye ilaahayow ninkaa ku arsaaq inantayda ilaahaw ninkii oo kale sii dee meesha waxaa ka soo baxday kii laftiisii inaad tahay maa sha allah waa la ysku bururayba in yar kadib buu dhintay ninkii kuushii isagii baa dhaxlay in yar kadib bay dhimatay baan leehay xaaskii baa dhimatay ninkii odayga masaajidkii uu tuki jirayna wuu hadhay kuushii uu helay
ee ammaanada uu ku ilaaliyeyna ninkii isagii baa dhaxal ahaan u qaatay bal ka warran